السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كان الكيني لو يقاني كوبعي سوفت وير آلابات قبرتين علومتا كلا دوان عشر كان وحن قاني عشر كيني لابات كساب سنة بارتي توبان لي هاي SPSS كا مكا عشر كي كهر يوم حريرا سؤالي سيدي بانوسي وضعنا سيدي لو بوحنيي دين عايا بروغرام كانوا لحنو دين عايا بروغرام كمان كان صوفورناي su-aashii waxaan ugu maraynay su-aasha saddexaad baan dhamaystirnay su-aasha afaraad ayaanu u gudbaynay aan weerkii soo furano su-aasha afaraad waxay ka hadlaysaa how did you get to work today waxaad ku timi shaqadaada marka shaqadaada waxaad ku timi su-aashani ku hadlaysaa marka sidii aan u geynin lahayn SPSS-ka sidii intii hore un bay la mid tahay stepskii hore la marayaa name ka la baxaysaa wuxuu su-aashani ku saabsan tahay guud ahaan macnahay xambaarsan tahay kasoo qaad su-aashan waxu bixsanaa work oo kale maadaama aan coding ku sameeyno su-aalaha SPSS-ka la geliyo badan ama coding baa lagu sameeyaa haddaad coding ku sameynaysidna typekeedu wuxuu noqonayaa numericaada u daynaysaa numeric baa iskaga daynaysaa wadhaska iyo decimalka wax macno weyn ma sameeyaan halkaa waxaad gelinaysaa su-aashoo dhammaystiran su-aasha aan soo koobi gareeyo su-aasha markaas soo koobi gareeyo ويا dhaqsanaya si micna video-guna u dheeraan value wax kale maaha coding-kii baad sameynaysaa number 1 maxaan u aqaanaa waa option-keyga koowaad waa work qofku work buu tikareenaya ama care ama bus car ama bus ama train ma soo lugeeyay ma gaari buu soo raacay ma bus buu soo raacay ma train buu soo raacay marka su-aasheeda koowaad number 1 waa work oo kale qof soo lugeeyay oo kale kadib add baan dhahayaa number 2 baan taabanayaa muxuu ka dambe waa car tirigaygu wuxuu noqonayaa bus oo kale number 4 wuxuu noqonayaa train oo kale marka intaas qofku waa intaas uu mutikareynaya okay ma iska dhahayaa intaas ka soo gudbo maadaama uu yahay coding waxa uu yahay aan saa number u galiyay ama ordinal buu noqonayaa ama nominal marka qofka soo lugeeyay qofka baska soo raacay mi kala sareeyaa may maadaama ay kala sareen nominal ba dooranaysaa su-aasheeda shanaad baan u leexanayaa aan eego su-aasheeda labaad wuxuu leeyahay do you own a home computer mid haysataa computer mid guriga ku haysataa su-aasheedu waxay ka hadlaysaa su-aasheeda labaad shanaad baan leeyahay computer bay ka hadlaysaa computer aan ka qoro halkaas numeric baan u daynayaa aan ka soo gudbo labelka waxaan ku qoray su-aasha dhammaystiran su-aasha waan soo koobi gareeyay ku basti gareeyay su-aasha waan soo koobi gareeyay value-gu wuxuu noqonayaa halka yar tick inta yar halka yar daaqada soo furanaysa value-gu wuxuu noqonayaa number 1 wuxuu taagan yahay yes ama no buu taagnaanayaa oo number 2 na ama no buu noqonaysaa labadaas uu mid noqonayaa okay buu dooranaysaa halkan scale maadaama coding yahay waa labadaas ama ordinal ama nominal yes iyo no ma kala sareysaa yes iyo no maadaama ayna kala sareyn qofka de qofna computer buu haystaa qofna wuxuu haystaa computer ma haysto marka nominal ba doonaysa maadaama qofna uu haysto qofka de ayna kala sareyn qofka computer haysto kii kaleba nominal ba iska doonaysaa su'aalo noo soo socda ma ordinal doonaysid ka badan ama nominal baa la doortaa marka questionnaire-ka su-aashii do you have laptop iyadoo su-aashana wax la xidhiidha laptop computer kii hore wuxuu la taxalluqaa computer ma haysataa desktop su-aashana wax la taxalluqdaa su-aasha lixaad do you laptop la taxalluqaa su-aasha waa iska dayn karaa su-aashii hore bay la mid tahay yes ama no su-aasha toddobaad aan soo gudbo su-aasha toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad saddexda su-aalood kaliya baa noo harsan maadaama marka saa u buuxiyo saas ku dhamaatay marka wuxuu yidhi do you rate your ability to use من aqoonta aad u leedahay statistics software ama SPSS software awoodaad u leedahay intan ku kala caday marka qaar ba dhahaya anu aad strong agree aad baan u aqaanaa software-adan ability baan u leeyahay qaana wax ku dhahayeen agree anu dhexdeen waan aqaanaa laakiin aad uma sii aqaani qaana wax dhahayeen neutral anu dhexdhexaad baan ahayba aadna uma aqaani kuma liito zero kamii strong disagree strongly waa maba aqaani ba jahil baan ka zero ma ka hay disagree-na in yar bay ka yara sokaysaa laakiin ma aqaani laakiin waa ka yara sokaysaa waxay ka leeyihiin heerar bay ka leeyihiin markan oo kale su'aalahani oo kale badanaa ku soo noqda questionnaire-ka markan oo kale waa coding wuxuu noqdaa
ordinal buu noqdaa. Ordinalku suu yahay ordinal micnaa wax kala sareeya. Haddee strongly agree wax ka sareysa agree oo lama mid aha. Neutral disagree strongly iyo disagree labadaasna way kala sareeyaan, maadaama neutral iyo agree na way kala sareeyaan. markaas oo kale waxa la isticmaalaa waxa loo yaqaano ordinal. waa arkanaa meesharka aan gelino spaceskeena. su-aashana lixaad waxay ka hadlaysaa statistics bisaha ka hadlaysaa numeric baa dooranaya maadaama coding sameynayo. halka waxaan ku best garanayaa su-aasheedii soo koobi gareeyay su-aasheedii best baa dhahaysaa. halka isha yar soo furo. marka su-aasha koowaad muxuu ku jawaabay? number 1 waxaan siinaynaa strongly agree aad baan u aqaana cid baa dhahaysaa. number 2 maxaa ku qornaa? anaga agree baa ku qoran. number 3 maxaa ku qoran? neutral afar waxa ku qoran strongly disagree baa ku qoran. aan aad sidaao number 5 waxa ku qoran disagree keliya baa ku qoran. marka disagree iyo strongly disagree iyo wax kala sareeya. agree halkan waan ka tegeeda. okay baan taabanayaa. meesharka markaan tegayo meesharka waan ku waray ordin maadaama uu yahay wuxuu coding ama ordinal buu noqdaa. badanaa de waxa spaces kala geliya waa coding, labadaa midun buu noqdaa ama ordinal ama nominal. marka wuxuu noqonayaa haddii nominal ama ordinal maadaama labada mid uu yahay. su-aasheedu hadda way kala sareeyaan. nominal ma noqon karo. ninka strongly agree ku jawaabay iyo ninka disagree ku jawaabay isku level maaha oo way kala sareeyaan. oo micnaa su-aasha laftigeeda marka la eego marka isku cabir maaha. ninka mid walba percentage buu leeyahay. marka ordinal baa doortaa maadaama ay saa tahay. marka dadkan wax kula taliya inay qaar baa isku khaldan nominal iyo ordinal. marka su-aalaha heer kale haddii kale satisfactionkaygu waa low iyo high iyo middle. marka su-aaluhu haddii saa yihiin oo kale oona wax number ku kala sareyn, laakiin waad ogtahay dareen ahaan waxa muuqata inay kala sareeyaan, laakiin ma kala garan kartid wax kala sareeya. haddee ninka high satisfied-ka ah, ninka middle satisfied-ka ah, qofka shaqadiisa ku qaata dhaadiisa shaqadaada saad u ganacsan tahay ma high satisfaction baa tahay mise low satisfaction. high satisfaction lama cabiri karo, lama dhihi karo ninkaasi 200 waa satisfactionkiisa waa 200, laakiin wuxuu ku cabiri karaa kelmad go'an ku cabiri karaa. laakiin markaasaa loo yaqaana ordinal, waxa kala sareeya haddana number lagu cabiri karin. marka su-aasheedu saasay noqonaysaa. su-aasha toddobaad su-aashii lixaad aan ka booday. ninka su-aasha sideedaad soo noqono. what is your opinion of the price of computer in Hargeysa? waa maxay waxa lagu su-aasha waxa ku saabsan tahay computerada Hargeysa yaala price-koodu see kula tahay? ma very expensive ma fair ma cheap ma very cheap? su-aashan oo kale way kala sareysaa. haddii ninka ku yiri very expensive iyo expensive way kala sareeyaan, laakiin lama sheegi karo xaddigay ku kala sareeyaan. hadda halkaa iga faham way kala sareeyaan. hadda very expensive haddaan ku dhaho this computer is very expensive iyo haddaan ku dhaho this computer is expensive, laba macno markiiba waad ka hadalkaygaad ka dhadhansanaysaa inay kala sareeyaan. laakiin intay kala sareeyaan kama dhadhansan kartid. ma 100 bay kala sareeyaan, ma 200 bay kala sareeyaan, ma 1000 bay kala sareeyaan, ma sentiyay kala sareeyaan. you never ma garanaysid mar walba ma garanaysid. marka su-aashaas waxaa la dhahaa ordinal. marka yaanu kaa khaldamin. macallimiinta qaar baa isku khaldaa micnaa in ordinalka iyo nominalka oo si khalada kuu sharaxaya. laakiin google garay example raadso. marka taas oo kale waxay noqonaysaa inay faa'iido kuu noqoto. marka su-aashan aan geliyo aan soo koobi garay horta. su-aashan waxay ka hadlaysaa qiimaha price-ka ka hadlaysaa. aan geliyo su-aasha price aan ku qoro halkaa. price-ka maadaama aan coding u sameynayo waa numeric baan u deynayaa. numeric-diisaan u deynayaa. kadib aan halkaa maxaan ku koobi garanayaa su-aashaydii aan soo koobi gareeyay baan ku koobi garanayaa halkaa. kadib halkan intaan soo furo value-ga coding baan u sameynayaa. su-aasha koowaad wuxuu dhahayaa number 1 waxaan siinayaa very expensive. number 2 waxaan siinayaa expensive.
number 3 waxaan siinayaa fair oo kale. number 4 waxaan siinayaa soo eegto number 4 wax ku qoran cheap iyo very cheap. number 4 waa cheap, number 5 waxaan siinayaa very cheap. marka labelkana wax lagu qoraa qoraalka, value-gana numberka lagu qoraa. add one mar walba dhahdaa okay maadaama ay ku tirsan yihiin. kadib maadaama ay kala sareeyaan, maadaama horta wuxuu coding yahay labadaas ordinal ama nominal buu noqonayaa. codingku maadaama uu kala sareeyana wuxuu noqonayaa ordinal, saasuu noqonayaa. su-aasheena kale ee ku xigtana saasun bay noqonaysaa. su-aasheena u dambeysay I like using computer. agree ninka ku dhahaa iyo ninka neutral ku dhahaa iyo ninka disagree ku dhahaa way kala sareeyaan, oo agree iyo disagree isku mid maaha. oo qaar baa ku dhahaya waa nominal. nominal maaha. nominal waxayna ku hayn agree iyo disagree isku mid baa may, markaa isku mid maaha way kala sareeyaan. ninka ku dhahaa agree iyo neutral, ninka ku dhahaa ninka disagree way kala sareeyaan. markaa su-aasha kale waxay noqonaysaa waxaan u bixinayaa magaceeda sug. order baan galay aan tago programkii. halka waxaan u bixinayaa like underscore computer oo kale waan u bixinayaa su-aasha magaceeda. numeric baan uga tegayaa. halka waxaan ku copy garanayaa su-aasha soo copy garaya su-aasha. control C baan taabanayaa. control C ma taabtay, control V baan taabanayaa, ku copy garanayaa. halka coding baan u sameynayaa. waxaan dhahayaa number 1 waxaan dhahayaa number 1 maxaa taagnaa agree baa taagnaa agree. number 2 maxaa taagan disagree baa taagan. number 3 maxaa taagan number 2. hadda su-aasha oo kale waa khalday. haddaad number 2 waxaa taagan neutral. su-aasha waa khalday, maadaama wax kaa khaldamaan isagii baad ku dul dhifanaysaa. remove baad iga dhexaysaa, iga remove garay, iga remove garay. hadduu khald gashid oo kale saasaad u remove garaysaa. neutral baan qorayaa. markaa neutral number 3 baan qorayaa iyo disagree baan qorayaa. markaas oo kale su-aashahaas oo kale saasaa loo buuxiyaa. okay maadaama ay kala sareeyaan, maadaama horta wuxuu coding yahay labada mid uma noqonaya. hadday kala sareeyaanna ordinal, maadaama hadday kala sareeyaan ordinal ma noqonaya. markaa su-aalahaygii ku qornaa wordka saasaan ugu buuxiyey programkii SPSS-ka. marka maxay noqonaysaa haddeer questionnaire-kii baan qaybinayaa. questionnaire-kii baa laga soo jawaabaya. questionnaire-ka marka laga soo jawaabo maxaan u leexanayaa waxaan u leexanayaa dhinacaygii data view baan tegaya. data view ma tegay su-aalihii marka laga soo jawaabay data view aan tegay. su-aalahaygii maxay noqonayaan inaan jawaabihii aan halkan ku qoro. marka maxaa imisa column baa samaysmay? kow column, laba column-kan wuxuu ka hadlayay gender oo waa magacyadii aan halkan ku qorayay ba halkan ka samaysmay, column ahaan u samaysmay. magacyadii arrowgan aan ku qorayay maxay u samaysmeen asa column bay samaysmeen. column-ka genderka wixii gender su-aalo lagaga jawaabay, kii schoolka, kii allka, waa da'dii, weekii, computerkii, statistics, price-kii, like computer. marka wixii su-aalihii aan geliyay su-aalihii oo dhan halkan ay wada taxmayaan. hadday 100 su-aalood yihiin ilaa halkaasay wada taxmayaan. marka casharka part 3 waxaan ku baranaa iyada oo su-aalihii na looga soo jawaabayay iyo qaabkii loo buuxin lahaa. casharka ku xiga ayuu noqonayaa. waa cashar aad u interesting u leh. marka sidaas u kala horeeyaan baa fiican inuu ardaygu u kala fahmo. saambalo kala duwan buu sameyn karaa ardaygu. marka casharka intaas kasoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.